waxaan ka hormarinayaa yaan ka hormariyaa faarax ka hormar adigu maxay kula tahay arrintan si guud Ismaaciil Cumar Geelle Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin walaalkii ii yiri hoog Allah badayo waa gabay walaalkaa inuu cadaalad xataa ku ahaado oo uusan xataa hiil kuu gelin ka weydid runtii waa nasiib darro maxaa arrintan si guud iyo si kooban maxaad naga oranaysaa riboodkan iyo labada falcelin kusoo dhawow meesha horta waxa weeyaan dhabta in laga hadlo baa loo baahnaa oo wixii jiray iyo wixii geedi socodka ahaa oo muddo dhowr sane hadda laisku haystay in la baaro oo run laga sheego baa meesha loo baahnaa looma baahneen in la isu ficilooda mise maaragtay walaa inay Soomaaliya weexdaan walaa inay Kenya weexdaan midna lama baahneen waxaa loo baahnaa inay dhabti jirto waaqica ay ka sheegaan wax marka horeba horta waxay khaldaneed nidaamka la isku dabariday guddiga maxaana duu guddi uu noqonaya IGAD waa inuu ka turjumaa laazim IGAD xibnaheeda oo dhanba waxaanan ka ahayn wadamaha ishaysto marka lagu kala dhex jiro maadaama Soomaaliya lagu kala dhex jiray iyo Kenya inay Kenya iyo Soomaaliya ka maqnaadaan hadday ka maqnaanina mid qof laga soo qaado oo macluumaadka la wareysto laakiin ay ka muuqdaan wadamaha kale oo dhanba oo kulli inta IGAD ka maartay ka tirsan oo dhanba ay ka muuqdaan South Sudan Uganda maxay ahayd kulli inay ka muuqdaan ayaa qasab ahayd Eritrea oo waqti badan ka maqnayd hadda si khalad oo xaqdarro oo dulmi oo qaladaadka waaweyn oo dhacay oo hadda geeska Afrika in laga saxay ay kamid tahay awgeedna uga maqnaayeen inay kamid ahaato baan anigu arkaa inay noqon lahayd reportka la soo saaray mid buu aad u muujiyey waana ku faraxsanahay inuu arrintaa u muujiyo midda uu muujiyey waxa weeyaan afkaarta iyo xisaabtanka iyo mabaadi'da uu ka aaminsan yahay Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliya iyo soo noqodka sharafta Soomaaliya iyo qarannimadeedii iyo danaheeda maaragtay sidii ay geeska Afrika wadamaha kale ay la mid iyadoo ay uga maqan lahayd waan aaminsanaa mar kastaba inuu ahaa xogaga lagu adeegto oo maaragtay aanan marnaba rabin Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto sharafteedii hore waxyaabaha maaragtay aan ka tusaale qaateena waxaa ka mid ah waxaa la yiri qofkaad garan weyda saaxiibadii baa la fiiriyaa Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu aad saaxiib ula ahaa oo aad uga agdhawaa oo walaal camal ula ahaa nin la oran jiray Mele Zanawina waa ninkii xamar intuu yimid markay ugu yartay 40,000 oo Soomaali ee halkan ku laayay aad bay saaxiib u ahaayeen saaxiibtinimada waxaan caadi ahayn anugu Ismaaciil saaxiib baan ahaan jirnay hore laakiin mar allaala markii waraysi dheer aan leela yeeshay aniga ku saabsan geerida ku imaatay ninkii la oran jiray Mele Zanawi xog cad oo waxaan hayaa markay dhegeysanayeen nimankii wasiiraha iyo dadka la fadhiyey xog aan ka helay ayaa caddaysay inuu aad uga xumaaday Meles oo dhintay dhibka uu ku hayay geeska Afrika markaan ka hadlay oo maaragtay uu yiri faarax ku watay inuu Meles kulli wax u istusay asbaabteedana wuu iska cadahay waxaa kaloo ku daliil arrintan inuu marnaba baraka ahayn arrintii ugu dambeysay oo keentay kala go'a labada wadan waxay ahayd markii ay Kenya iyo Soomaaliya intay isku xumaadeen Soomaaliya ay soo ceshatay safiirkeedii Kenya safiirkeedana ay tiri orod Nairobi ku noqo la tashi la soo yeela dowladdaada waxa weeyaan qofkan inaad garoon kale ku dhufato sifa maaragtay uu xukmi yeelay Musabbixi oo Somaliland oo maaragtay اعتراف doonayso wax badan baa Kenya laga wada hadlay oo la yiri anaga haddaan wax saan rabna ka weyno Muqdisho Hargeysa diyaar inoo eectiraaf diyaar
موسى إمادي موسى سيدي هير مدحوينه أو كله يودن قرن أو لسنا هلو سودوي تي واي هرت بدأ ودن بيسي أو يسود أي مقدشة كضدي أو أي حريرك كوجويسي هيدهن وحنو tantamount to recognition وحين مثليسا إن لا أقون صدي territorial integrity unity الصومالية أو معرفتي لا من لماذا الصومالية هي مقدس لماذا حدود ذا وتيو الرئيسية اللوضة واحد قلت كينيا تعود وحكرا نقول حريرك مركي شركي أدس لو سميي ماشي اللي يراه جيبوتي ساس تودي ماتي لما ما نكذب هذا وكي اسماعيل المرجل مصبح الديار وصدره يلي كاله هي ما فالكي وهو سمي من لماذا يسمي marka iyada ah waxa ku habooneed dawladda Soomaaliya inay mowqif adag qaadato ay tiraahdo kow ana safiirkan waan la soo noqonaynaa oo waan ka maxay ahayd waxaan sameeynaa consultation ma sameeytaa hada xiriir la gooyin laakiin talaabada koowaad Djibouti laga qaado midda labaad in la yiraahdo barannimada Ismaaciil Umar Gali iyo Djibouti ma aaminsanin marka waa in dib la isku soo noqdaa oo guddiga la diray uu noqdaa guddi ka balaaran inta iyada marka horta khaladaha dhacay khaladihii dhacay diplomacy international relations waxay u baahan yihiin markii ay birta ay castahay ayaa la gargaraaca gadaal markii haddana waxba ku dhaafay marka waxba seegay muqdisho almuhim bas reportka sidii loo soo sameeyey waa wax qaawan oo been oo khalad وحياوها واقعات كان لغا حدلا أنا مرنا بلغا حدلين محد هدي بين أدكو أساليسو دنيار إنا جارتو أو دو ولادي ويسي فغاريسا لبدي ودن وناق أدكبيريسا مرنا بمرحة مهمة اللي قالي يحي إن لما ودنو إسهيستان لك ردح قلنا وإن هنت إنتي الله الشيغا قفك استخلدات كيس الله الشيغا خلدات كان لغا سو نوضح صح مركا هدان لكن أدبينكو أساليسا معناها وحويان wixii in uu sii socdo oo fidnadii ay sii socoto oo maaragtay ay arinta wax badan baa la yiraahdaa doorasho lagu danay anu mid ugu weyn hadda arkay xaween Soomaali margeel asaga hatay doorasho ay hadda ku soo foodo ku soo haysa waa markii lixaad oo uu dhiganayo laba kale ay dastuurka ogolaanay dastuurka 2010 waa laga qaaday maalinkii la doortay anigu waan joogay oo markii saddexaad loo doortay waxaan joogay Djibouti markii wuxuu ka yiri waa markii ugu dambeysay cid kale oo maaragtay hogaamin lahayd wadanka waa inaan ku xisaabtanaa muddadan yar oo hadda 5 sano oo hadda lagu kordhiyay laakiin tukaro ku darsaday tukaro hadda ku darsanayo tii lixad ma noqonaysaa hadda mid la sugayo marka nin waxa la yiri hooyadii har intuu ka jiiday qorraxdu jiiday adiga hoos kuma jiiday qorrax dhigay adiga hoos kuma jiiday marka arimahaasna meesha way jiraan waa taayade marka waxaan kaga baxayaa anigu labada wadan xiriirkooda inuu hagaago waan rabaa in la soo dhaweysto waan rabaa ma noqon karto wax lagu asaleyn hayo Chad maxaa loogaan waa Chad waa sun أنا جي برلمان كينيا محيه ضد بانجي أدونك سوجي دور نمبر سون بكيه وأنا وهاي جيبوتي سون كماها ما لحظة عنتها حاجة ما لحظة ما عنتها ما لبض ما ينكوعن وصمالو ضد مع عذر كاي إنكارتا سيتو إيه هيستا لكن ماشي ولو لك عيحتي وحيتوسيس يعني ignorance يجاهلنا ماشي بدبيسي يعني حتى لقد دونا محيه ضد ماشي على مريء looga doona inay tahay khalad ay tahay waxa muujinteeda waxa weeyaan cidna la iska gadayo cidna maaragtay mindida daabka loogu geynayo danta uu kaliya ani ma garanayo maamul goboleedyaha oo dhan meeshay u badan yihiin uu yeertay uu ugu yeeraa xagga dowladda Soomaaliya dadkii hore mucaaradka ahaa kulli uu ugu yeeraa wax wanaag oo ka soo baxana ma aragno ninka odayga Soomaaliya markuu madaxda Soomaali u yeero waxaan aaminsanay inuu leeyahay warkaalay wada hadlo heshiiya لكن مرة دوس وناقنا سوس عليه وحيس لهن من كان أنا شاع لقى قادم الشيء كري ولا تفسير كانوا حاويا في النادي أمور سيهورن هي لكن إلهي بعيبتي سمعت بالناك دي
ummadii iyo islaamkii iyo reer Djibouti iyo afrikaankii iyo gaal iyo muslim nin kastaba maanta wuu u jeedaa oo sacad oo bareer ayaa loo arkaya Ismaaciil mowqifka uu ka qabo qarankan Soomaaliyeed inuu sharaftiisa soo noqdo oo qarankana uu cidna ku xadgudbin asagana aan lagu xadgudbin laakiin dee way iska caddaatay